qolka geey qadaar la yiraahdo haye marka wiilkii meesha aniga keenay qadar gabar noogu jiro waxaan xaaqo soo qabo haye intuu qadar ku maqnaa aan musqaas gal hoga qamiita oo ku laaday musqaas gal soo qoysanaa haye أنا wanaagsan aqyaarta wadaan ku saaxiibnay idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareey cid walba muuqaalka la gareey subhanallah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna umuuraha leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barkeeyo inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baari hasi inta gurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasi iyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaan la gareeyana waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna mal adduunyo aysan filaynin inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiya dambigood dambiga waalidkoodana ee buu dhaafar rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku azuma jannatul firdaws ala xaasidka waxa leenahay ومن شر حاسد إذا حاسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحقودا بينيا هد يقصارو waxaa dhawaanahan Soomaaliya meel kala duwan ku soo badanayay kufsiga iyo tacadiga loo geysanaya haweenka Soomaaliyeed kaas oo ay geysanayaan rag magaca Soomaaliyeed sheeganaya laakiin xumeynaya ragnimadii ragga Soomaaliyeed magacooda kuwaas oo bahdilaya isla markaana dhibaateynaya dumarka Soomaaliyeed waa kuwa damiirka la isla markaana aan dadnimo ku jirin waxaana kuwaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku aaban doona adduunka korkiis aakhirana waxay mutaysanayaan cadaabta bi'innillahi alkariim maxaa yeelay haweenka mar way ku dhaleen mar wayna dhaleen marnana waa u dhaxnaa marnana waa dhalnay waana ceeb iyo fawaaxisho in maalin ilaahay keena la kufsado lana furxumeeyo gabar Soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsanin kiiskii ugu dambeeyay wuxuu ahaa gabar lagu magacaabi jiray Allah u naxariista Xamdi Maxamed Faarax oo dhammaanteen aan u taaganahay inay hesho cadaalad fadlan muuqaalka si shargareeya si marxuumadda iyo ehelkeedaba ay u helaan cadaalad waana waajib dhammaanteen saaran diiniyan ah in gabadhaasi dhimatay ee marxuumadda ah ee hesho cadaalad qoyskeedana ay helaan cadaalad waxa ciidamada booliska Soomaaliya dadaal dheeraad ah sameeyay ee ka soo qabteen magaalada Cadaado mid kamid ah eedeysanayaasha lagu tuhmay inay kufsadeen Xamdi Maxamed Faarax dabadeedna ay ka soo tuureen dabaq 6 bayaana ah oo ku yaal degmada Waaberi ee gobolka Banaadir midkan xumeynaya magaca ragga Soomaaliyeed wuxuu u moodaa inaan lahaynin cadeemaha dhibaatooyinka gabadhan Xamdi uu u geystay waxaana xog iyo sir aan helnay ay sheegaysaa in yarkan laga soo qabtay Cadaado iyo 3 eedeysanayaal kale ay ahaayeen kuwii soo afduubay Xamdi xilli ay doonaysay in ayaydeed dharkay u soo dhaqdo isla markaana ku soo ritay gaari qofulan geeyana hoteelka ay ku kufsadeen dabadeedna ay ka soo tuureen bal ilaahay idinku dhaarshay dhammaanteen aan wada daawanno labalabada uu ku hadlayo midkan kamid ah kuwii dhibaatada u geystay Xamdi Maxamed Faarax kufsaday dabadeedna dabaqa ka soo tuuray adiga isweydii wuxuu ku sheekaynayo wuxuu ka sheekaynayo aqli ahaan ma wax la qaadan karaa bal ila daawo muuqaalkiisa kadibna qaybta hoose fariimaha nagu reeb aragtidaada waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan ka rajaynaynaa in cadaalad ay hesho marxuumad Xamdi Maxamed Faarax iyo qoyskeeda kuwaasina la geeyo tiirka lagana abaal mariyo dhibaatada ay u geysteen gabadhaasi dugsiga sare sanadkan ka baxday ee marxuumadda ah ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistii janno hasiyo dambi dhaaf iyo maghfira rabbi subhanahu wa ta'ala hasiyo marxuumadda shiidka وعرفنا هرتا الصحة وأمير قبطة هذا سمع أمير عفمات كي وطن وأكون حسنت برنامج السيدة قريب كم إذا أخرتي وعدي شيء أنا قبل هذه صوغدي دبقنا أساختي هوتيل كاد جيسي waxaan ka rabnaa inta kale aan u dagto si uu fududaado kiiskaagu annagana dhageyso wax yar laakiin duurka la wac ha duurka ha خليك هوتيل كجي ولو أي شيء فعلا نتوقع ما هي شغلة خليك هوتيل كتكن تساعد تدور ساعة دي وحوار عصام لكن أنا وعلي قاسم يا بلاد كلنا وعدار أنا ولا ساعة أنا ومهم كمان الموت أنا مركز أدو ويلي قبل أنا وأنت ساعة شو ليه ساعة مجرد مركز لكن دور ساعة وحدي وحوار أصبح واسمع مرتب هاو كنت بمشي الجران بس أنا قبل مركي ولا درس فلقي أنا واحد مرنا قبل أعوز وأفكر يعني كان أقول قبل أتاجع عبتي ما أنا قلت أفكر لكن قبل وعادي أنا لما كنت لما جاي فور لما تفور وحدي أمر كحرينا وتضمع كوعي فور وحدي إيه فرتني سده فرتني سده إبر لح طبعا إبر لح طبعا أيضا نمبر كيو تيشيرت نقول لهم كيف كمان